muusikadaasi intiina badan kuma cusba garan maqalkeeda hase yeeshee dad badan ayaa ka warhayn heestaasi cidda qaadatay waana su'aal muhiim ah oo intiina badan mar walba aad isweydiisaan waana fanaankii weynaa aabihii fanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cabdullaahi Qarshe Cabdullaahi Maxamuud Maxamed Qarshe sanadkii 1924 ayuu ku dhashay magaalada Moshi oo ka tirsan gobolka Kilimanjaro ee dalka Tanzania kadibna waxaa la geeyay dalka Yemen oo ay ku noolaayeen eheladiisa qaar sida walaalkii ka weynaa magaalada Cadan waxa uu ku noolaa ilaa da'diisu markay ahayd 20 sano jir waxaana magaalada Cadan ka shaqeyn jiray idaacad ku hadasha 3 af oo kala ah Carabi, Hindi iyo Soomaali labada baahinood ee Hindida iyo Carabigu waxay ahaayeen kuwo leh muusiko balse qaybta Soomaaliga waxaa laga baahin jiray gabyo oo uu ka mid yahay kuwa uu tiriyay Allah u naxariistay Xaaji Aadan Afqalo Cabdullaahi Qarshe waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii dhageysan jirtay idaacadda balse waxa uu aad uga calool xumaa markasta in qaybta Soomaaliga ee idaacaddani ay ka tayliidato qaybaha kale marka loo fiiriyo xogaha ay baahiyaan oo ayna ku jirin fan Soomaaliyeed oo leh muusiko يوددك وحمل بيغانو وحمل بيغانو إنانو دالانيو إنانو ديمانوي ديمانوي sanadii 1941 ayuu ku hamiyay Cabdullaahi sidii uu wax ugu bedeli lahaa fanka Soomaaliyeed oo ugu dari lahaa qayb leh muusik ama kaban waxayna ahayd markii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu waxa uu bilaabay in uu daawado filimaanta Hindida ah sida uu wax ugu fahmo qaabka codka loogu dhawaaqo isagoona xilligaasi ku jiray dugsiga dhexe ee magaalada Cadan Cabdullaahi waxa uu suuro gashay in lacag dhan 10 rubi ah oo uu ururiyay ka bixiyo kaban yar oo markaasi aan tayo badan lahayn si uu bilow u noqdo hankiisa fanaannimo markii uu iibsaday waxa soo food saartay walac ah in walaalkii ka weynaa uu ka war helo kadibna uu ka joojiyo lacagta uu dugsiga kaga bixiyo 4 sano kadib waxa uu u soo wareegay magaalada Hargeysa sanadii 1945 waxa uu Qarshe yimid magaalada Hargeysa markaasi oo ka bilaabantay kacdoonkii heesaha balwada oo uu aabo u ahaa Cabdi Deeqsi Warfaa Cabdi Sinimo oo isaga la sheego in uu dhashay 1920 dhageystayaal la socda qaybta labaad oo aan ku faahfaahin doono heesaha uu qaaday iyo kuwa taariikhda galay oo dadka intooda badan ay aad u yaqaanaan Thank you.